Assalaamu calaykum. Waan ku salaamay daawada meel walba dunidan aad ka joogto ku soo dhawow mar kale macluumaadyo kale oo ku saabsan taariikhda dalkeena Soomaaliya. Buuggaani taariikhda dalka Soomaaliya waxa uu ka hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin qorshayaashii Soomaaliya loo degay, gumaysihii Talyaaniga, Faransiiska iyo Ingiriiska, go'aanadii qaramada midoobay, halkii ay soo martay Soomaaliya, dadaaladii kala duwanaa ee jasiirad-u-eeyaasha Soomaaliya loo kala qaybiyay iyo macluumaadyo kale. Buuggaani waxaa qoray Maxamed Ibraahim Maxamed Liiqliqato waxaanu ugu magac daray taariikhda Soomaaliya dalkii filka weynaa ee Punti. Macluumaadyo badan oo laga yaabo inaadan hore u maqal ayaad halkan ku heli doontaa insha Allah. Hordhaca buugga ayaan ku bilaabi doonaa. Sida la ogyahay adduunyada ma jirta meel dad degan yahay ama hore loo soo degay oo aan taariikh lahayn. Sidaas daraadeed jasiirad-u-eeyaasha ee Soomaaliya maanta loo yaqaano deegaan ahaan waxa isaga dambeeyay Wanyeke ama Senji, Berberi iyo Soomaaliya oo maanta degan. Inkastoo raad-reebyo badan aan laga haynin dadkii deegaanka ku kala dambeeya ama qoraale laga raadraaco taariikhdiisii hore, haddana wax uun baa ka haray oo raadinta taariikhda looga ambaqaadi karaa. Goorta deegaan taariikhdiisa la baarayo si loo helo wax sugan, waxaa loo baahan yahay in la helo raad-reebyo caddaynaya dhacdooyinka ay taariikhdiisa ay raacdo, sida qoraallo, dhaqan haraa ah iyo waxyaabaha la midka. Ujeedada buuggaani loo qoray ma ahan inuu soo koobo taariikhda deegaanka Soomaalida ama kuwii ka horreeyay ee dalkaba, balse waxaan filayaa in uu noqon karayo saldhig looga ambaqaado baarista taariikhda dadka iyo deegaanka filka weyn ee maanta loo yaqaano Soomaaliya. In muddo ahba waxaa jira arrimo muran dhaliya oo ku saabsan Soomaalida isirkeeda, goortay soo degtay dalka maanta Soomaaliya loo yaqaano iyo siday ugu fiday dalka ballaaran oo maanta ay degan tahay. Waxaa kaloo in la caddeeya u baahan xiriirka Soomaalida iyo Carabta ka dhexeeya oo soo jiray waayo aad u fog, saameeyeyna dhaqankoodii bulsho, heerka uu gaarsiisan yahay iyo xiriirka ilbaxnimada ee ka dhexeeya labada dhinac. Dhanka kale waxa kale ee caddaynta u baahan ayaa waxay tahay xiriirka dhalasho ee ka dhexeeya qolooyinka waayihii hore ee Berberiga loo yaqiin jiray ee maanta magacyo kala la baxay halka uu salka uu ku leeyahay. Si kastaba ahaatee waxaa loo baahan yahay baarista arrimahaasi oo idil in la sii wado si loo helo taariikhda runta ku salaysan, loogana baxo labalahowga iyo walaaca muranka dhaliya ee taariikhdayada. Buuggaani oo qoray Maxamed Ibraahim Liiqliqato in badanna uu ku howshooday waxa uu u qoray inuu ka qayb galo tartanka lagu raadinayo runta taariikhda dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed oo la filayo in nin kasta oo Soomaaliya xil ka saaran yahay in aqoontiisa, kartidiisa iyo dadaalkiisaba qayb ka siiyo dadweynaha u baahan aqoonta tagtada ah, iyada oo laga fogaanayo aragtida gaaban iyo qaabka beenta ku salaysan ee aan raadraaca lahayn runtana la raadinayo. Hawshaasi waxaa lagu dhammaystirayaa taariikhdayada ee qabyada ah oo inta badan dhalisay in arrimaha qaarkood lagu kala sooci waayo runta iyo beenta. Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa geedka looma abuuro adigaa harsan doona, oo micnaheedu uu yahay waxa loo abuuraa in jiilka ka dambeeya ay harsadaan. Haddii waayihii hore aqoon darrada naga haysatay taariikhdayada ayna ugu wacneed qoris la'aanta afkayaga, maantana uu qoran yahay, wuxuu dadweynaha Soomaaliyeed yar iyo weynba tabayaa taariikhdiisa oo ku qoran afkiisa hooyo inuu helo. Qolo kasta oo adduunka degan taariikhdeeda waa ay qortaa, waana ay keensataa si jiilka ka dambeeya uu timaadada u tixraaco uguna kordhisto aqoontiisa. Maxaa yeelay taariikhdu waa macallin, waxaana ay ku bartaa inaad ka weecato tubta qalloocan ee la soo maray, kuguna hagaajisaa tubta habboon aad timaadada mari lahayd. Dhammaadkii qarnigii 19aad taariikhda iyo habnololeedka qaranka Soomaaliyeed waxaa dhalan rogay tartankii gumaystaha Faransiiska, Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashida, iyadoo waxyaalihii u dahsoonaa la soo ifbaxay, hodannimadiisana lagu daba xiray duni uusan aqoonin. Waxaa soo galootiga gumaystayaashii ay aad ugu fududaysay Soomaalidii oo aan lahayn maamul dawli ah oo midaysan oo qaanuun la aqoonsan yahay ku dhisan, iyo iyadoo ku habeysnayd guurto xoola raacata ah oo ku salaysan habjilaabeed. Taasina waxay keentay inay wadajir ugu hortagi waayaan soo galootigii gumaystayaasha ahayd oo ku abdaystay qaybsanaanteeda. Waaguu gumaystuhu qorshaysanayay inuu kala qaybsado qaranka Soomaaliyeed, waxaa Soomaalida maamulaya muqaawiirteeda, waxaana ay lahayd xeerar iyo dhaqan fil weyn oo ay isku maamuli jireen. qaybinta gumaysiga waxay keentay in Soomaalida ay qaranka ahayd la dhaqan habaabiyo, laguna maamulo shuruuc iyo xeerar shisheeye oo ka fog habkeedii dhaqan dhaqaale. waxaana qaybintaasi door weyn ka qaatay Ingiriiska ee dhagartii ugu horreysay ka galay taariikhda mugdiga ah ee Soomaalida. Xoogagii gumaysiga ee Yurubta galbeed goortii ay maleegeen
mardabadii lagu qabsanaya qaaradda Afrika. Waxa ay shir ku qabteen magaalada Berlin ee dalka Jarmalka bishii Febraayo sanadkii 1884. Shirkaas oo ujeedadiisu ay ahayd in go'aan laga gaaro sidii qolo waliba qaaradda Afrika sadkeeda gumaysiga ay uga heli lahayd. Dood dheer kadibna bishii November sanadkii 1985 waxaa go'aan lagu gaaray in qolo waliba dalka ay ku hormarsato ay iyada ay gumaysan karayso, isla markaana loo aqoonsado rasmi ahaan in iyada ay gumaysanayso. Hase yeeshee waxa ayaan daradii ahayd xabashidii oo ahayd waagaasi dowladii kaliya ahayd ee Afrika ka madax banaanayd in ay ka qayb gashay shirqooladii qaaradda lagu qaybsanayay sadkeedana ay ka qaadatay. Faransiiska ayaa gumaystayaashii ugu horreeyay inuu geeska Afrika ku soo galay heshiisyo ula dhigtay jamaamuurta lagu magacaabo Abokh sanadkii 1962 miilaadiga, waxaana ku xigtay sanadkii 1984 ilaa 86 miilaadiga heshiis kale oo dhex maray Faransiiska, Salaadiinta Cafarta iyo Soomaalida ee Tijara iyo sidoo kale Gobad, oo ay dulucdeedu ay ahayd inuu ilaaliyo dalkooda nabadgelyadiisa iyo sidoo kale inay yeeshaan xiriir iskaashi ah. danuhu u soo galay xeebta Soomaaliyeedna waxay ahaayeen inuu badda cas maraakiibtiisa dagaalka marse uu uga helo uuna siyaasadiisa gumaysiga saldhig isgaarsiin uga dhigto, dabadeedna xabashida dalbalaarsigeeda uu ku taageero uuna adkaysto ganacsigiisa dalkooda ballaaran ee badxiranka ah. waxaa xigtay Ingiriiska oo danuhu uu ka lahaa ay ahaayeen qabsashada xeebaha Soomaaliyeed goortay masaaridu ay ka kacday, sidoo isagaba sheegay inuu ciidamadiisa cadan fadhiyo cunto uu uga helo gaar ahaan hilibka. hase yeeshee danaha dhabta waxay ahaayeen iyadoo cadan ay u ahayd saldhigga difaaca iyo xiriirka isgaarsiinta dalalka isaga uu gumaysto, inuu xeebaha Soomaaliyeedna ku darsado, dabadeedna labada dhinac ee qooriga cadmeed ka ilaaliyo iridda koonfureed ee badda cas. labada gumaysta ee Ingiriiska iyo Faransiiska waxay ku heshiiyeen sanadkii 1988 miilaadiga inay rasmi ahaan kala soo hodimaystaan intii mid waliba qayb u helay dalka Soomaaliyeed, iyada oo aan lagu tixgelinaynin dadkii lahaa dalka. waxay ku heshiiyeen in Ingiriiska uu qaato Saylac iyo wixii soohdinta dhanka xeebta Soomaalida la mariyo Habaas Weyne, biyo qaboobe iyo sidoo kale Jildaysa, uuna ku sinaado magaalada Harar ka shishe. waxaase dhacday 20 Maarso 1897 inay Faransiiska iyo xabashida heshiis qarsoodi ay ku galeen magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, waxaana loogu magac daray heshiiskaasi Franco-Abyssinia Treaty ama heshiiskii Faransiiska iyo Cabaasiyiinta. waxaana ay ku heshiiyeen inay soohdinta u dhaxayso xeebta Soomaaliyeed iyo xabashida ay marto Galiilyo, halka ay ka mari lahayd Harar ka shishe oo ahaa siday Faransiiska iyo Ingiriiska ay horey ugu heshiiyeen sanadkii 1888. sidoo kale Ingiriiska isaga oo ku dayanaya dhagartii Faransiiska Soomaalida uu ku sameeyay ayuu isna xabashida la galay heshiis 14 Maarso sanadkii 1879 waxaana uu u ogolaaday inay xabashida ila wareegto dalka Soomaaliyeed qayb kamid ah. waxaa halkaasi durbadiiba kaaga muuqanaysa mardabada iyo dhagarta gumaysiga dalka Soomaaliyeed ugu heshiiyay inuu ku kala qaybsado iyada oo aan la qadarin dadka Soomaaliyeed ee dalka lahaa. heshiisyada jamaamuurta Soomaaliyeed ee la galeen gumaystayaashaasi waxaad moodaa inay isku qorshe ay ahaayeen oo isku meel ay ka soo baxeen, wadajirna ay u soo abaabuleen Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga iyo xabashida. heshiisna waxay ku ahaayeen mardabada iyo sidoo kale dhagarta dalka Soomaaliyeed lagu qaybsaday. qiimaha waaweyn ee ay lahaayeen heshiisyadaasi ay wada galeen jamaamuurta Soomaaliyeed iyo gumaystayaashooda waxaa ka mid ahaa inaan lagu xusin soohdimaha iyo masaafada dalalka saldhigyadu ay u ahaayeen heshiisyadaasi, taasi oo banaynaysay gumaystayaasha inay hadba siday doonaan ay u maamulaan una qaybsadaan. halkaa hay noo joogta qaybta koowaad ee macluumaadka ku saabsan taariikhda Soomaaliya. dalkii filka weynaa ee Punti ama Uduga waxaa qoray Maxamed Ibraahim Maxamed Liiqliiqato. qaybta xigta intaan ku kulmi doono waxaan kaaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.